magaciisa oo dhamaystirani waa Sanjay Sunanda Kapoor, waa actor iyo sidoo kale producer. Xidigani waxa uu dhashay 17 Oktoobar 1965. Actorkan waxaa si weyn loogu bartay filimkii Raja oo noqday filim guul weyn soo hooya. Waa aasaasaha Sanjay Kapoor Entertainment Private, shirkadaasi oo ay ku mideysan yihiin xaaskiisa Mahib Sandhu. Actorkan filimkiisii ugu horeeyay waxa uu soo baxay sanadii 1995 waxaana uu ahaa filimkii Prem, waxaana filimka la matalaysay oo actorad ka ahayd actorada Tabu oo iyaduna ku cusbay saaxadda jilista aflaamta. Filimkan oo dib u dhacsanaa lana sameeyay sanadii 1989, labada actor waxa ay soo bandhigeen shaqo wanaagsan, waxaana uu sidoo kale qarxiyay box office-ka. filimkiisii ku xigayna waxa uu ahaa filimkii Raja, waxaana actorshad ka ahayd oo la matalaysay actorada Manduri. filimkaas oo soo hooyay guul aad u weyn. waxa uu ku xijiyay filimaan dhowr ah sanadii 1997. filimadaasina waxaa ka mid ahaa Awsar iyo sidoo kale Mohabbat. sanadii 1999 waxa uu soo saaray filimkii Siriftum. haddii aynu eegno actorkan doorkiisii actornimo iyo filimaantii uu matalay badanaa waa ay guul dareysteen. sanadii 2002 waxa uu ka soo muuqday filimkii uu ku jilayay Khain, waxaana uu ahaa filimkii Koi Mere Dil Se Puche.